taliyaha guud ee ciidanka qaranka Somaliland Sarreeye Gaas Nuux Taan Ismaaciil oo ku sugan jiida hore ee Somaliland ayaa ka warramay khasaaraha ka dhashay weerar ay subaxii saaka soo qaadeen maamulka Puntland kaasi oo uu sheegay inay Somaliland ka jawaabtay isla markaasina ay halkoodii ku celisay sidoo kale waxa uu taliyaha guud ee ciidanka qaranka Somaliland Sarreeye Gaas Nuux Taan Ismaaciil uu sheegay inay gaadiid kuwa nooca dagaalka ay ka qabsadeen maamulka Puntland iyo sidoo kale maxaabiis gaadiidkaasi oo ku jiray kaare isla markaasina dhanaa 6 gaadiid taliyaha guud ee ciidanka qaranka Somaliland Nuux Taan Ismaaciil oo ka warramaya weerarkaasi ay maamulka Puntland ku soo qaadeen jiida hore ee Somaliland ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waxa la soo weeraray ciidanka Puntland oo naga soo weeraray jiida hawdka laba jeer bay kala hayeen subaxdeena waa marbay soo weerareen kowdii iyo wixii ka dambeeyay ilaa galabtii ay gaadhaysanaa weerar bay nagu soo qaadeen weerarka waa la celiyay waxa ka dhintay saddex intaan ognahay saddex waxa ka dhaawacmayna 5 annaga weerarka shalay waxba naguma gaadhin saaka subaxdii maqaylaa 7 meelaha ahayd weerar ballaaran oo laba jiha oo hawdkii xagga hawdka iyo xagga garowe amba god qaboobe ayaa ciidamo ballaaran naga soo weerareen dagaalkaasi muddo 4 saacadood iyo badha ayuu socday dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dhan walba haatee waxaan soo waan ka saaray god qaboobe iyo aagii waana jabinay labadii aagba waxaan ka qabsanay 6 baabuur oo mitaangi yahay ayaan ka qabsanay dhaawac maxaabiis badan waan ka qabanay dhaawac badan waa la hayaa intii dhulkii ay joogeen annaga joogna hadda ciidanka qaranka jooga inkastoo la jeclayn dhimashada labada ciidan ka dhacday haddana waxa kalifay cidii soo qaaday baa kaliftay maantana annaga guusha joogna waanan ka kaxaynaa ay joogeen Somaliland waxaan leeyahay marka hore ciid wanaagsan waa May mar labaadna ciidankiina wuu xaqana waa salaantii uu ka maray halkan uu ka guuleystay tan iyo maalinkii shalay ayaa dhaqdhaqaaq dagaal laga soo sheegayay xuduudka u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland taasoo ay isku soo urursanayeen ciidamada maamulka Puntland Boqor Axmed Cabdi RTN TV Hargeysa